reexaanow sida daarodow inta islaamka oo halkan joogto inaan lagu xadgudbin ceel dad islaam leeyihiin inaan dhegteeda aysan maqal waa haddii duca iyo baraka iyo khayr laga rabo intaa baan ku soconnay mesajkaas inaan runtii gudbinno midda koowaad waxaa weeye waxaa la yidhi ceelkii ugaaskaa la burburiyey baa la yidhi oo la gubay ugaaska dadka u dhexeeya soomaali islaam cid walba u dhexeeya ceelka hadda dhibka soo gaarayna soomaali o dhan baa ka cabaysay waxaa ka cabayey xayawaankii xoolihii muslimiintii cid walbaa ka cabaysay ceelkan anaa qoday ugaas maxamed ah mar haddaan qoday haddana ana hagaajin oo hagaagsan haddii lahayd laakiin waxaan rabaa inaan ku dardaarmo ceelkan dhibka soo gaaray in aan dadka islaamka ah ama ceelasha kaloo islaameed aan dhibaato loo geysan ceelka sidaan hore u sheegayba muslim oo dhan baa ka cabo anigu marka waxaan wadaa waa duco iyo barako iyo khayr xaqiiq waa idiin sheegayaa nolosha waad ku guulaysanaysaan nolosha waad ku guulaysanaysaan waa haddii waxaa idin faraya aad yeeshaan waa maxay inaan lagu xadgudbin ceel dad islaama ay leeyihiin inaan lagu xadgudbin ceelka sidiisa waxaa qodo dad donation dad wax soo aruuriyey ceelasha ninkii dee asaga qotana waa asaga qotay laakiin ceelasha waxay u badan yihiin dad xoolo soo aruurshay donation oo $1 laisku daray ninkii marka intuu u tago burburiyo haddii aafaa ku dhacayso waxaan idinkala dardaarmayaa inta aan ugaaska u ahay ama reexaanow inaan lagu xadgudbin ceel islaameed oo la taaban oo la badbaadsho waa middaas midda kaloo labaad waxaa weeye aan ku dardaarmayaa qaaduc dariiq inaan la noqon oo aan gaadiidka iyo dadka iyo bulshada isku soconaya aan jidka loo gelin waan ogahay in aad ka fiican tihiin laakiin waxaan ku dardaarmayaa inaan xadgudubka aan la samaynin oo la oranin reer hebel baa halkaa galay ama waddadaa galay midda kaloo saddexaadna waxaa weeye in nafta bini aadamka la badbaadiyo in qof iska socdo oo aan wax kuu dhimin in la iska qabsado la iska dhibaateeyo taasna waa ka digayaa saddexdaa qodob haddii lagu dhaqaaqo oo laga rur sheego ilaahay subxaanahu watacaala waxaad ogaataan waana daawanaya bini aadanka waxa uu geysto asagaa iska leh laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kugu bedelayaa wanaag kastoo aad samaysay wanaag iyo ka badan hal xumaan haddaad samaysidna dee waa lagugu bedeli dhibka odayaal iyo ikhyaar iyo dhalinyaro daarankayga ugu muhiimsan oo aan runtii aan ku socday wuxuu ahaa reexaanow sida daarodow inta islaamka oo halkan joogto inaan lagu xadgudbin ceel dad islaam leeyihiin inaan dhegteeda aysan maqal waa haddii duca iyo baraka iyo khayr laga rabo intaa baan ku soconnay mesajkaas inaan runtii gudbinno